dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laba geesi weey. waxaan kaloo runtii aad ugu mahad celinayaa Puntland shacab iyo dowladba oo runtii markii dagaalka lagu jiray dadaal aad u badan bixiyay. siyaasadda Soomaaliyeed haddii la midayn karan hal mideeyo, haddaan la midayn karin nin walba faraskaagu ha ku qaado. Allah idin barakeeyo, dowladdeena Allah inoo barakeeyo, gacmaha aan isqabsanno, khilaafka aan yarayn. qolada walaalahana waxaan leenahay dad badan oo maaragtay ka xun waxana gaadhay baa ku jira, dad badan oo taageera ku jira, dad badan oo kor ugu dhawaaqay baa ku jira inay dadka dulmiga laga daayo. ilaahay boorkeena burcad hay Soomaaliyaanu leenahay. garaadka galad jaamac garaad Ismaaciil suuqan keenay garaad qaadadan iyo casuumadan aad noo samaysay oo waliba suuqay keentay dad aan jecelahay madaxdii federaalka waa kaaga mahad celinaynaa. waxaan kale u mahad celinaynaa runtii halkan shaqo weyn baa ka qabsoontay, shaqo Soomaaliyeed, shaqo qaran, shaqo aan isleeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxtar bay u tahay baa qabsoontay. waxaa maartay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo dhaxmariyay dowladda federaalka xubnaha hadda halkan la fadhiya gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare, wasiirka arrimaha gudaha, wasiir Cali Xoosh, biyaha iyo tamarta, bidhaan sanatarada oo runtii ku jirta hablaha Soomaaliyeed aad iyo aad u jecelahay shaqadeedii iyo maxay haytay islaaxinteedii iyo wanaageedina runtii ay aad u muuqatay. qowdhan saaxiibkay oo mahad xildhibaankeenna dhammaanteen isimada iyo waxgaradka fadhiya, ambassadorkii oo runtii hawshan halka uga yimid Jaan Xasan Khaliif oo runtii juhdi badan ku bixiyay ama tiirarka maaragtay hawshan kamid ah. dhammaantiin waxaan leenahay waxaan idinku ogsoonahay beerka waxaa qabateen shaqo wanaagsan, waxaa qabateen shaqo qaranka Soomaaliyeed waxtar u ah, waxaa qabateen shaqo dadkii la xasuuqay, la dhibaateeyay, la damcay waxaan Soomaali geyin in lagu sameeyo samata bixisay. abaalkeedina waad helaysaa insha Allah taala. intaas waxaan ugu mahad celinayaa tiimkii nala joogay. dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laba geesi weey. waxay ku dhiiradeen dadkoodii oo u baahan oo 20 sanadood hablaha yaryar ee iskuulka dhigtay lagu leeyahay calanka Soomaaliyeed la ordaya inay kala mid dhigaan dadka Soomaaliyeed. waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. annaguna Soomaali insha Allah taala waxaan ku dadaalaynaa meel ay joogto annagu aan kala soocaynin, koonfur ha joogo, waqooyi ha joogo, abaal inaanu hayno waqooyi bari in Soomaali wada leedahay, in la wada dhisan karo, in laga wada shaqaysan karo, in laga wada ganacsan karo, inay horumarka iyo nabadda Soomaaliyeed ka qayb qaadanayaan madaxda qaranka iyo madaxda joogta iyo dadka